ergadii uu Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo dibadmeer ka ahaa muddooyinkii ugu dambeysay Somaliland madaxweyne Biixi u soo diray maxay kala kulantay sidee ayay suurtagal u tahay inuu ku soo laabto magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyadoo ay gobolkiisii kaga saameyn bateen siyaasiyiin ay isku deegaan yihiin mas'uulkan oo uu la soo xumaaday go'aankii uu garaadada bariga Sool ku raacay ayaa waqtiga kan ku dadaalaya sidoo u baajin lahaa xilka qaadistiisa warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa shuruudo adag oo ay xukuumadda Somaliland ku xidhay soo noqoshada gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi iyo musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ku sugan wadanka Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay ergo u yihiin Cabdirasaaq Khaliif Axmed sidii uu ugu soo laaban lahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyagoo kala hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland una sheegay in laga cafiyo khaladaadka uu qaranka ka galay waqtigan xaadirka si uu ugu soo laabto mas'uuliyaddii uu hayay Somaliland oo ahayd gudoomiyaha golaha wakiilada Mr Khaliif ayaa ka googoostay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii ay garaadadu qoonsadeen inuu Somaliland u xaglinayo waxaana halkaasi kaga saameyn batay siyaasiyiin ay isku deegaan yihiin oo ka yimi magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kuwaasi oo ujeedadii iyo hadafkii siyaasi ay xaaladani ku socotay dhinac kale u rogay hase yeeshee Cabdirasaaq Khaliifna ay u cuntami weyday ugu dambeynna go'aan waxa uu ku qaatay inuu halkaasi iskaga ambabaxo oo ergo u soo dirsado madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xukuumadda Somaliland ayaana shuruudo adag hor dhigtay sida warbaahinta xogogaal ay u xaqiijiyeen ilo xogogaal oo ay koow ka tahay inuu cadeeyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland meesha ay xadgudubyada ka geysteen ee uu warbaahinta ka sheegay sidoo kalena beesha caalamka la wadaagay iyo sidoo kale inuu raali gelin ka bixiyo weerihii uu warbaahinta u mariyay qarankii uu ka ahaa ninka saddexaad ee u dirsaday ceelalyada intaasoo kaliya maahe waxa Laascaanood ka socdaa inay yihiin arrin siyaasadeed oo looga soo horjeedo qaranka jamhuuriyadda Somaliland halisna ku ah taasna inuu daaha ka rogo oo ku daro warmurtiyeedkiisa uu soo saaray Cabdirasaaq Khaliif Axmed intaasi kadibna ay xukuumadda Somaliland u furayso albaabada wada hadalka uuna ku soo noqon karo magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in uu iska fogeeyay mooshinka ay ka wadaan golaha wakiilada ee Somaliland kaasi oo uu sheegay madaxweynuhu inay tahay shaqo iyaga u taala oo aanu isagu shaqo ku lahayn iyagana lagala hadli karo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ergada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ka socotay ayaana ugu dambeyntii waxa ay isla gaadheen in arrinkaasi miiska wada hadalka la isugu yimaado Cabdirasaaq Khaliif Axmedna uu shardiyadaas xukuumaddu hor dhigtay fuliyo marka bisha barakaysan ee Ramadaan dhamaatana si toos ah hawsha loo guda galo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed